بسم الله الرحمن الرحيم waxaan gudaha ugu jirnaa weli topigeeni ama course-keena ahaa thesis management and editing waxaan hore uga soo hadalnay introduction-ka iyo waxa video kale ka soo sameynay managing of book source-ga anagoo arrangement sameynay material-ka meel isugu geynay dan chapter-ka isku xirnay maanta waxaan rabnaa inaan sameyno haddii aan idmo labadan topigan oo book topiga iyo sub topiga home menu-gan ka sameyn doonaa waxaan modify garay doonaa insha Allah hidden ama hidden abuureena dan sub hidden adana abuuri doonaa haddii aan idmo buugana waa kana marka oo complete thesis buug oo dhameystiran chapterada meesha isugu jiraan marka sidaan oo kale inta soo kaasatid oo dan ku jiraan ku meeshan waxa ku yaala marka hidden iska hada normal oo taagan yahay mid walba aad doorato isbedel ku dhacay farto oo aragtay chapterka waana meesha cursor-ka mar walba uu ku saaran yahay isbedel ku dhaca qaybta uu ku saaran yahay marka si marka aan u helno marka waxyaabaha u baahanahay saddex gaajoona digsiina ama saddex waxa la jiray waxyaabood kan afraadna waxay noqonaysaa takastiga sida normalka dhamaantiis horta waxaa laga dhigaa 12 cabir ahaantiisa hidden-ka marka rabto marka waa kortigaysa every hidden u baahan tahay hidden-ka hidden 1 waxa u isticmaali doonaa ciwaanada oo chapters-ka modified qaybta modify-ga furo dan hidden 1 ku yahay darabtan waa ka bedeli kartaa oo topics-ka ama chapters-ka magacaas oo baxsan kartaa hidden 1 marka waxa kalena aan leenahay inuu ahaado Times New Roman fartiisa ay noqoto 18 dan alignment-giisa oo center noqdo color-ka black oo noqdo bold oo noqdo intaas ku sameeyno automatic update mar walba si automatic ah isku update kare waa no modify gareysan mar walba shayga aan hidden 1 kor saarno automatically waa noqdoona sidaas dan okay aan leenahay okay marka dhaano hada waa kana calaamada hidden 1 hada taabto waa kana chapter-ki uu yimid waxaan ku ogaanaysaa inuu hidden saaran yahay calaamadaas ka soo baxayso hada marka fiirino waxa leena chapter-ka modified maxaa oo ka hadlaa waa Times New Roman waaye alignment-giisa 18 farta alignment-giisa waa center-ka intaas oo kala marka just hidden 1 waa inuu sameeyay then waxaan sameynaynaa sub topics ajir introduction-kaas oo kale marka rabtina topic u sameeysid iyo dan qaybaha kale inta marka topics maxaa la rabaa dan waxaan tagaynaa hidden 2 isina modify leenahay modify marka dhaano farta same Times New Roman loo isticmaalaa most of the time kii hore maadaama 18 ahay kan waxaa leenahay 16 kan marka ma u baahnin center wuxuu jiraa corner-kiisa bold inode then color-kiisa black inooga dhig automatic update inode waa 16 oo bold corner-kan jiro wixiisa dhan ay u dhameystiran yihiin dan okay dan ciwaankan oo kale hadda marka introduction-ka u baahana inaan ka dhigno hidden kale kor saarayna automatically marka hadda wuu inoo sameeyay introduction marka saan oo kale inta tahay erayga ugu horeeyo waa inuu noqdaa maxaa la jiray mid bold second hadda marka waxaan oo sameysmay mar walba kor tagtay marka inuu hidden ku jirno uu ku sheega hadda marka inta kor istaagnin calaamadda hidden 1 kor istaagay marka inta kor istaagana calaamadda hidden 2 kor istaagaysa labada marka aan sameeyno waxaan sameynaynaa hidden-ka saddexaad oo hadda waa kan waxaan u isticmaalaynaa introduction-nadaas dan markii aan u baahanahay qaybtaan oo kale inta markii aan tagno oo objective marka dhaano oo journal objective-kan oo kale inta marka hidden 2 siisid waxa u baahan tahay specific objective-ka inuu ka duwanaado journal objective-ka isagana sida loo sameeyaa hidden 3 yaa soo dooreena the modifier dheena Times New Roman farta kiyada 16 oo ahaa kan waa 14 center ku ahaato dan wax yar gudaha soo geliya leenahay meeshaas ka dooranaysaa oo inuu gudaha wax yar ka duwanaato tan kale inta loo geliyo dan black automatic update dan okay hadda waa kana subtopic-giisa kale markaa doorto oo hidden 3 adho wax yarna gudaha soo gala wuuna sameysmaa bold-gan ka tagay right click then bold okay automatically waa kaya uu qaato marka hidden-iska iyo sub hidden-iska marka sidaas loo sameeyaa dan marka waxa sameynaysaa waa ku alignment gareyn kartaa mid walba aarabta marka hadda introduction waa helnay dan chapter-ka maxaa ku xigay oo looga hadlayay maxaa la jiray
background of the study background of study haddaa u baahan tahay inaad muujisid just waa leedahay heading 2 intakan background studies waa heading 2 then waxaad tegaynaa problem statementiga waa heading 2 then waxaad tegaynaa purpose of studyga waa heading 2 objective horaa u sameysanay then waxaad tegaynaa waxa loo yaqaano research questionska waa heading 2 then waxaad tegaynaa hypothesis haddii la isticmaalay research question hypothesiska waa kala duwan yihiin bachelorkiisa question isticmaalaan hypothesiskana waxaa isticmaala dadka masterska sometimesna waa la isticmaala scope of studyga waa heading 2 marka mid walba u baahan tahay dhow waa kor istaagaysaa marka waa u baahan tahay hadda marka heading 3 waa kana geographical scope markaa rabta inaad sheegtid heading 3 aad dooranaysaa oo ka duwanaana heading 2 then content scope markaa rabtid heading 3 aad dooranaysaa then time scope markaa rabtid heading 3 aad dooranaysaa hadhowna waa arkaynaa effectigan sida uga soo muuqanayo markii la sameeyo marka ugu dambeyso maxaa la dhihi jiray table of contactiga markii la sameeyo oo ugu dambeeya marka aan sameeyo conceptual framework waa heading 2 oo weeyay operational definition kana waa heading 2 marka headingska sidaasaan loo sameeyaa dan loo isticmaalaa mid walba u baahan hadda chapter 1 chapter 2 oo kale inta tagnay qaybtiisaan ugu horeyso oo dhan waa heading 1 aan qeynaysaa marka waa ciwaankii iyo introduction-ka waa heading 2 hore u sii soconaysaa marka hadda kan oo kale intee qaybtaan looga hadlayo theory-ga waxyaaba qaar aan kasoo reebin isigana wuxuu noqonaa heading 2 marka sidaasa every chapter u sameynaysaa waad dareemi karaysaa runta chapter 1 waa dhameeyey video soo u dheeraanin marka heading 2 saasaa loo heading saasaa loo modify garaystaa saddexdooda kan koowaad 18 uu ku noqonaa kan labaad 16 kan 14 takastigana 12 hadhow noo noqon doonaa isigana waa arkaynaa markii takasti baadiga